Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaasha qiimaha badan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkeena ciyaaraha waxayna soo qaadan doonaa Anthony Taylor oo guud ahaan ka fariistay garsoorka sidoo kale waxayna soo qaadan doonaa Morgan Rogers oo sheegay sababta uu diiday Mikel Arteta iyo sidoo kale dhaleecan xoogan uu u jeediyey haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir haddaad hor noola joogtay like iyo share noo dheh waad mahadsan tahay aan ku bilownay garsooraha muddada dheer ka shaqeynayay Premier League Anthony Taylor ayaa ku dhawaaqay inuu si degdeg ah u fariistay garsoorka kadib 16 sano uu garsoorayay horyaalka ugu sarreeya ee England. Taylor oo 47 jir ah ayaa soo afjaray xirfadiisa isagoo maamulay 831 kulan oo isugu jira Premier League, koobabka England, tartamada Yurub iyo kuwa caalamiga ah. Ciyaartiisii ugu dambeysay waxay ahayd kulankii wareegga 16 koobka adduunka 2026 ka oo dhex maray Portugal iyo Spain. Ugu dambeynna Spain ayaa 1-0 uga adkaatay Portugal. Gudaha England, Anthony Taylor wuxuu garsoore ka noqday dhammaan koobabka waaweyn ee dalka, waxaana ka mid ahaa finalkii FA Cup-ka 2017 iyo 2020, finalkii Carabao Cup-ka ee 2015. Waxa uu sidoo kale garsooray 432 kulan oo Premier League ah, 668 kulan oo gudaha Ingiriiska ayuu garsooray 16 xilli ciyaareed uu Premier League ka shaqeynayay tan iyo 2010kii uu ku soo biiray garsoorayaasha heerka sare ee England. 432 kulan oo Premier League ayuu hogaamiyay oo horyaalka ah. Wuxuu garsooray dhammaan finalada waaweyn ee koobabka England. 14 sano ayuu ku jiray liiska garsoorayaasha FIFA. 163 kulan oo caalami ah ayuu hogaamiyay. Wuxuu ka qayb galay 2 koob adduun sanadkii 2022 iyo sidoo kale 2026, 2 Euro 2020 iyo 2024, iyo 2 Club World Cup 2022 iyo 2025. Wuxuu dhigay rikoor Premier League ah isagoo bixiyay 14 kaar oo jaalle ah hal kulan gudaheed. Anthony Taylor ayaa sheegay in cadaadiska joogtada ah iyo dhaleecaynta badan ee garsoorayaasha lagu hayo ay sabab weyn u tahay go'aankiisa. Wuxuu yidhi, garsoorka heerka ugu sarreeya wuxuu ii ahaa sharaf weyn, laakiin cadaadiska iyo dabagalka joogtada ahi waa kuwo aad u culus. Waxaan u arkaa in waqtigii saxda ahaa la gaaray si aan uga fariisto una bilaabo marxalad cusub ee noloshayda. Sanadkii 2023, Taylor waxaa si weyn u weeraray taageerayaasha Roma garoonka diyaaradaha Budapest ee cariga Hungary kadib markii tababarihii Roma ee waqtigaas Jose Mourinho uu si adag u dhaleeceeyay garsoorka finalkii Europa League ee Sevilla ay ku guuleysatay. Taylor ayaa markii dambe sheegay in dhacdadaas ay ahayd tii ugu xumeyd ee uu la kulmo, gaar ahaan maadaama ay la socdeen xubno ka tirsan qoyskiisa. Kulankii ugu dambeeyay uu garsooray Premier League wuxuu ahaa guushii West Ham ay 3-0 ka gaartay Leeds United maalintii ugu dambeysay xilli ciyaareedkii dhammaaday 2025-26, inkastoo West Ham ugu dambeyn u dhacday heerka labaad ee Ingiriiska. Xilli ciyaareedka cusub waxaa la hirgelin doonaa xeerar cusub ay ka midka yihiin ciyaaryahanka lagu daweynayo garoonka dhexdiisa waa inuu bannaanka ku maqnaadaa ugu yaraan 1 daqiiqo. Garsoorayaasha waxay adeegsan doonaan tirinta 5 ilbiriqsi marka la tuurayo kubbadaha foorooyinka iyo sidoo kale kubbadaha bilyaneerada ah. Ciyaaryahanka la bedelayo waa inuu garoonka uga baxaa 10 ilbiriqsi gudahood. Anthony Taylor ayaa ka tegaya garsoorka isagoo loo aqoonsaday mid ka mid ah garsoorayaashii ugu caansanaa uguna waayo-aragsanaa ee taariikhda Premier League. Dhanka kalena, Chelsea ayaa si rasmi ah u shaacisay saxiixa weeraryahanka reer England Morgan Rogers, kaasoo kaga yimid Aston Villa lacag rikoor cusub oo lagu sheegay 117 milyan. Toddobaadkii hore ayaa warar badan soo baxay oo sheegaya in Chelsea ay ka adkaatay kooxda horyaalka Premier League ku guuleysatay ee Arsenal tartankii loogu jiray saxiixa Rogers. Markii uu ka soo laabtay koobkii adduunka, Rogers ayaa maray baaritaanka caafimaadka ee loo yaqaan medical ka hor inta aan Chelsea si rasmi ah u dhawaaqin. Kooxdu waxay xaqiijisay in ciyaaryahanka 23 jirka ah uu saxiixay heshiis soconaya ilaa 2033, kaasoo ah 7 sano oo uu kula joogayo garoonka lagu magacaabo Stamford Bridge iyo sidoo kale macallin Xavi Alonso. Rogers ayaa bogga rasmiga ah ee Chelsea ku sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay ku biirista kooxda iyo inuu la shaqeyn doono tababaraha cusub ee lagu magacaabo Xavi Alonso. Hadaladiisa ayaa dadka qaar u fasirteen inay yihiin dhaleecayn dadban oo ku socota tababaraha Arsenal ee Mikel Arteta, maadaama uu sheegay inuu doonayo koox uu si xor ugu ciyaari karo. Rogers wuxuu yidhi, aad ayaan ugu faraxsanahay. Aniga ahaan, Chelsea waa kooxda ugu weyn ee London. Waa koox aan jeclaa tan iyo yaraantayda. Wuxuu sii raaciyay, waxaa aad ugu faraxsanahay mashruuca tababaraha cusub ee Xavi Alonso, ciyaartoyda aan haysano iyo jihada aan kooxda u socoto.
Taasi waa sababta aan halkan u joogo, ma sugi karo inaan bilaabno xilli ciyaareedka cusub." Isagoo ka hadlaya, Xavi Alonso ayaa yiri, "Waxaa la yeeshay wadahadallo dhowr ah. Waxay ii ahayd muhiim inaan fahmo sida uu tababaruhu u shaqeynayo iyo qaabka uu doonayo inaan u ciyaarno. Qaabkiisu wuxuu si buuxda ugu habboon yahay sida aan kubadda u arko. Waxaan rabaa inaan ahaado aniga oo xor ah oo aan is muujiyo." Taasi waxay ii ahayd sabab weyn oo Chelsea ugu soo biiray. Chelsea ayaa heshay mid ka mid ah ciyaartoyda ugu hibada badan England, halka hadallada Morgan Rogers ee ku saabsan xorriyadda ciyaarta ay dhalin karto dood ku saabsan inay dad badan u beegsadaan Arsenal iyo sidoo kale qaabka uu u ciyaaro tababare Mikel Arteta.